kulankan oo ay isugu yimaadeen beesha mursada magaalada Muqdisho ayaa waxay ku taageerayeen go'aankii uu qaatay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanku waxa ayna sheegeen inay soo dhaweynayaan arintaasi sidoo kalena waxay dawladda ka codsadeen in dalka laga hirgeliyo doorasho cod iyo qof ah kuwan iyagoo arintaasi ka hadlaya magacaygu waa Suldaan Abuukar Socdaal Abtidoon go'aan qaadashada madaxweynaha oo go'aanka qaatay oo maaragtay u bareeray go'aankii baarlamaanka inuu ayido oo markaas isla markaas go'aan gaaro maxaa yeelay dawladdu waxay u baahan tahay go'aan adag ninkan go'aanka adag lahayn oo laba caahuna dadka u dhurshaa marka waa ku mahadsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu maaragtay go'aan qaatay intaas kadib waxaan kula dardaarmay waxaan kaloon u mahad celinaynaa Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore go'aan qaadashadiisa xayinimada ah ee uu go'aankii ayiday laga soo saaray muxuu ahaa go'aankii laga gaaray oo markiiba qaatay isla markaasna sidii hore oo u shaqeynay intuu ra'iisul wasaaraha ahay xayinimadii iyo degmooyinka gobolada Soomaaliya oo tagay intooda badan irsato waxyaabaha mararka qaar kood dawladnimada loogu soo gambado oo dadka Soomaaliyeed oo shacabka wax lagu yeelo ee ay kooxadan leeyihiin ka shaqeystaan sida doorashooyinka dadban oo kale ay uga faa'iideystaan sida ay maartay dhaqaalaha dawladda iyo magaca dawladda iyo kaarka dawladda ay ugu maartay dadka uga dhigaan dardaryo uga dhigaan ku dardaraan oo ku baabashaan cadaaladdan ku baabashaan waxaan leenahay waxa dad dawladdu waxay cadaaladda laga sugayaa tahay cod hal qof iyo waxa jirta oo aan marnaba la aqbali karin aan u sheegaynaa dawladda federaalka ee madaxda dawladda inaan anagu aqbaleynin doorasho dadban oo lagu soo xulo baarlamaan Soomaaliyeed 2021 waxaan taageeraynaa in shacbigeenu wax doorto oo xildhibaanka baarlamaanka aniga igu matalaya inuu ahaado mid haysta codka shacabka beesha 39 ama mursal isbishii habar cayno oo ah jufada aan ka soo jeedo waxaan ka digayaa inay mar labaad dhicin oo ina soo noqon xildhibaan aniga bari igu yiraahda kursigan lacagteedan ku fadhiya habar cayno wax ima dhiiban mursada wax ima dhiiban way soo martay baarlamaanku igu matala ma yaqaano waxa uu meesha ku fadhiyo albaabki isin hakagaleen mas'uuliyadii beesha geeka siin ka helinaya walaalyoonkiin kale geeka hagalayaan haddii isin isku daydaan hoog geeka ma siin shaqeeyaaso beesha way siin eraase unu ma siin fadaano dad baa dawladda albaab kasto iyo dadkan ka gal lahaayeen u taagan dadka taagana dad aan soo doorano annagu codkeena ku keenna maahan waxaan maanta sugaynay dawladdan Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aan ka sugayno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ka sugayno waxay ahayd in cod nin iyo cod la gaaro qof walibana ay hesho xuquuqda ay ku leeyahay dawladnimada Soomaaliya ay ku leeyahay oo codkeedana wax ku doorato codna lagu soo doorto waxaan ku bogaadaynaa sidii ay sheegeen oo madaxweynuhu oo shala sheegay oo codkiisa noola soo hor istaagay oo loo ku saxiixay in dalkan la gaarsiiyo qof iyo codkeenuna oo shaqeeyo cidna anagoo dulmayn cidna anagoo ka wax sheegayn anagoo cidna daba ka raacayn ayaan waxaan ratleenahay madaxweyne waxaan kaaga fadhinaa codkii shalay aad noo sheegtay oo aad noola soo hor istaagtay kalsoonida aad ogeeday iyo ninka la yiraahdo أنت أنكل قرب استغني يسبورت كأندل يدبت كسبورت قرينا كاغا فدينا maantay كل حلبان بدن علينا حلبان كسوخوس كسو جري oo la taagan yahay lacagtiida ku imaaday 20 sano jooga 15 sano jooga 10 sano jooga bal qofka iga qaadi lahay kaalkeen marka anagu waxa rabnaa xildhibaan oo anaga nagu matalo codkanadii oo shacabka matalayo oo anaga soo dooranay lacag ku imaanin oo soo doorteen shacabka سأدرت برلمانك يدولد وح وفرنا دورشة سوفر تسان وأرجنا حق يا حلال من التغيير إن شاء الله أنا شخصي شاء الله الدولة ضد وحنا الدولة كنولا ضد وحنا ولقوا الدولة سعودي ساي حدنا الدولة دي ما دام برامني سركي أو حلقة كبحي معناه ذمان أنا إنا برامني سركي الله بحنا مايا شاء الله الدولة وتغييرين ayaa maanta u taageersanahay ugu dambeyn kulanka waxa ka soo baxay war-saxaafadeed beesha mursade annaga oo ku hadlayna magaca beesha mursade karanle waxaan rabnaa in aan baaq nabadeed
u gudbino dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Lambar 2 waxaan soo dhaweynaynaa tallaabo kasta oo dalka u horseedaysa doorasho qof iyo cod ah si awoodda iyo talada dalka loogu soo celiyo gacmaha shacabka Soomaaliyeed lagana ilaaliyo in aan koox iyo shakhsiyaad kooban gacantooda aysan gelinin codka shacabka Soomaaliyeed. waxaan ka soo horjeednaa in la qabto doorasho dadban oo salka ku haysa musuqmaasuq iyo oo ay hor socdaan kooxo danley ah. waxaan beel ahaan ka codsanaynaa dowladda nabad iyo nolol in aan awoodda amni iyo midda dhaqaale aan loogu caburinin laguna boobin codka iyo talada beesha kor ku xusan. xilliga doorashooyinka soo socota laga qaban doono sidii doorashooyinkii hore ee ka dhacay Cadaado 1 oo naf iyo maalba lagu duudsiiyey ergadii xaqa ahayd ee beesha soo xulatay. Number 4 in mudnaanta koobaad la siiyo xasiloonida iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda meel kasta oo ay ku nool yihiin. in laga fogaado hadallada xanafta leh iyo wax alaala iyo wixii keeni kara kala fogaashada ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Number 6 in dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada si hal aragti ah oo mid ah ugu hoggaamiyaan dalka una turaan shacabka Soomaaliyeed ee 30 sano ku tabaaleysnay gudaha iyo dibadda dalkooda. Number 7 in aan la taageerin wax kasta oo qarannimada ama astaanta dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax u dhimi kara. Number 8 in laga foojignaado lagana fogaado gacmaha shisheeye ee raba in Soomaaliya ay noqoto goob dagaal sida Yemen iyo Liibiya maadaama xilli xasaasi ah oo ay dowladda iyo dalka u galay. Number 9 waxaan mudnaan siinaynaa iyo mahadcelin sida xilkasnimada leh oo uu xilka uga degay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Som News TV, magaalada Muqdisho.